istuudiyada dhexe ee magaalada Jowhar kuna soo dhawaada barnaamijka Faransiga wararka Soomaalida intuu socdana caawa waxa ay soo gudbin doonaa anigoo Zaki Soomaali iyo sidoo kale Sahar Wadani qodobada aad ku daawan doontaan kuna dhageysan doontaan waxa ka mid noqon doona wasiirka koowaad ee dalka oo guddiga magacaabay hubinta qoondada habeenka amara laga soo saaray gaadiidka aan taargada wadan ee ka dhex shaqeeya magaalada Gaalkacyo gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo magacaabay guddiga aqalka sare ee doorashada baarlamaanka Puntland oo kulan ku yeeshay magaalada Garowe qodobadaasi iyo kuwa kale intaas ka faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan sidoo kale kuna dhageysan doontaan ee u diyaar garooba wasiirka koowaad ee dalka ayaa magacaabay guddiga ka shaqeyn doona qoondada habeenka warbixin umurtaasi ku saabsan waxaynu soo jeedinay wariyaheena Cumar Goox Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa magacaabay guddiga xaqiijinta qoondada habeenka 30%. Guddigan ayaa ka kooban 13 xubnood waxaana gudoomiye u ah Batuulo Sheekh Axmed Gaballe sidoo kale waxaa xubin ka ah ilaa iyo dhowr xubnood oo ah habeen iyo sidoo kale rag 1 Batuulo Sheekh Axmed Gaballe gudoomiye 2 Marwo Caaisho Geele Diiriye xubin 3 Marwo Muraayo Ibrahim xubin 4 Marwo Sahro Maxamed Axmed xubin 5 Marwo Caaisho Caashuur xubin 6 Marwo Shukriye Diini xubin 7 Marwo Hinda Axmed Faarax xubin 8 Marwo Caaisho Cabdulle Siyaad xubin 9 Marwo Suhuur Yuusuf xubin 10 Marwo Nasra Sheekh Mahdi xubin 11 Marwo Shariifo Cadow Axmed xubin 12 Marwo Hoodo Nuur Xaashi xubin 13 Mudane Axmed Xasan Sadiiq xubin guddiyadan ka kooban 13 xubnood ee isugu jira rag iyo dumar ayuu Ra'iisul Wasaare Rooble u magacaabay inay ka shaqeeyaan hubinta qoondada habeenka 30%. Cumar Goox warbaahinta City amara laga soo saaray gaadiidka aan taargada wadan ee ku dhex shaqeeya magaalada Gaalkacyo Abu Karyare ayaa warbixintaasi inoo eegaya gaadiidka ka dhex shaqeeya deegaanada maamulka Galmudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa laga soo saaray amaro ku aadan in laga hortago gaadiidka aan wadan taargada ee ka dhex shaqeynaya deegaanada gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo taliyaha ilaalada wadooyinka magaalada Gaalkacyo Xidigle Shariif Cali ayaa soo saaray amaro looga hortagayo gaadiidka aan wadan taargada kana dhex shaqeynaya magaalada taliyaha waxaana uu sheegay in cidii lagu qabto iyada oo aan wadan lahaanshaha gaariga iyo taargada ay ka qaadi doonaan talaabo sharciga waafaqsan dhinaca kale waxa uu sheegay in cidii lagu arko inaysan taargada wadan ay u aqoonsan doonaan inay ka shaqeynayaan amni darada deegaanada maamulka Galmudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo waxaan ka ogeysiinaynaa bulshooyinka reer Mudug Gaalkacyo gaadiidley laga bilaabo maanta 3 bari oo maanta ay u horeyso waxaanu bixinaynaa ogeysiin waxaanu bixinaynaa wacyigelin haddana taargadu way socotaa iyo buugga lahaanshaha iyo sharciyada gaadiidka waxaanu ku boorinaynaa inay qaataan waxaan uga digaynaa 3 maalmood oo ka bacdi cidii lagu qabto sharci la'aan taariga la'aan cidii lagu qabto sharciga waxay ka mutaysanayaan waxay ku leeyihiin ma la cafin doono qabiilna lagu cafin maayo musuqmaasuq lagu cafin maayo taliye hebel baa dabinta lagu cafin maayo qof walba wuxuu sharciga ka mutaysto helayaa 3 bari ka bacdi qofkii lagu qabto sharci la'aan gaadiid ah gobolka Mudug salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waxaa ka mid ah buugga lahaanshaha waxaa ka mid ah istiigarka waxaa ka mid ah taarigada waxaa ka mid ah laysinka darawalka gaadiidku sharcigu iska leeyahay marka qofkii laga waayo maanta maalinta ka saddexa ilaahay hadduu idmo qofka sharcigu u gafay waa suuq madow waa shabaab waa dusdus waa argagaxiso mana cafin doono Abuukar Ali Cadaabe Abuukar Yare warbaahinta City
gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa magacaabay guddiga doorashada baarlamaanka aqalka sare ee dowladda federaalk Soomaaliya ee deegaan doorashadu tahay magaalada Baydhabo ee xarunta gumeel gaarka oo ah koonfur galbeed Soomaaliya. warbixin muurtaasi ku saabsan waxaynu soo jeedinay wariyaheena Sahra Cabdi Xuseen Saare Wadani oo dhinaciga taagan. gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Dr. Cali Saciid Fiqi ayaa magacaabay xubnaha xildhibaanada golaha wakiilada ee qabashada doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo dhawaan ka bilaabmayso deegaanada maamulkaasi koonfur galbeed. Fiqi ayaa guddiga uu magacaabay waxa ay ka kooban yihiin 11 xubnood sida uu u sharaxay warbaahinta Maxamed Nuur Macalin gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. bismillaahi raxmaani raxiim maanta oo ay taariikhdu tahay 25 bishii 7 2021 golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed wuxuu magacaabayaa guddiga doorashada ee xildhibaanada aqalka sare. marka sidan ayaan warqadan u akhrinaa. ujeedo magacaabid xubnaha xildhibaanada guddiga golaha wakiilada ee qabashada doorashada aqalka sare. gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya markuu arkay baahida loo qabo guddiga hirgelinta qabashada doorashada aqalka sare, markuu arkay gudoomiye ku-xigeenada golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed, markuu la tashaday madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya, markuu qiimeeyay aqoonta iyo khibradda xubnaha ay u leeyihiin arrimaha doorashada. gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wuxuu xubnahaas hoos ku xusan u magacaabay guddiga qabashada doorashada aqalka sare. lambar 1 xildhibaan Usmaan Buule Macalin, lambar 2 xildhibaan Aamina Isaaq Maxamed, lambar 3 xildhibaan Ibraahim Macalin Cali, lambar 4 xildhibaan Ibraahim Xaaji Xasan, lambar 5 xildhibaan Qaasim Maxamed Abuukar, lambar 6 xildhibaan Xareedo Ibraahim Xuseen, lambar 7 xildhibaan Maxamuud Sheekh Maaxi Yuusuf, lambar 8 xildhibaan Abshir Diiriye Nuur, lambar 9 xildhibaan Mukhtaar Maxamed Aadan, lambar 10 xildhibaan Usmaan Nuur Aadan Fiile, 11 xildhibaan Cabdifataax Maxamed Ali Abrone. waxaa ku saxiixan gudoomiyaha golaha wakiilada koonfur galbeed Ambassador Dr. Cali Saciid Fiqi. wabillahi tawfiiq. baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland oo kulan aan caadi ahayn ku yeeshay magaalada Garowe ee caasimadda maamulkaasi Puntland. warbixin umuurtaasi ku saabsan Cumar Guuxa inoo eego. waxaa golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland u qabsoomay fadhiga 18aad ee kalfadhiga 48aad ee uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedkaasi Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil, iyadoona kulankan ay ku wehelinayeen ku-xigeenka koowaad Cabdicasiis Cabdullaahi Cusmaan iyo ku-xigeenka labaad Ismaaciil Maxamed Warsame. fadhiga maanta waxaa soo xaadiray 38 xildhibaan, waxaana gudoomiyaha golaha wakiilada madasha uu ku wargeliyay in uu u soo gabagaboobay ajandihii kalfadhiga 48aad marka laga reebo qodobka 5aad ee ku saabsanaa doorashada xubnaha aqalka sare ee dowlad goboleedkaasi Puntland ku matalaya baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedkaasi Puntland ayaa la wadaagay in maalmaha soo aadan la qabanayo doorashadaas golahuna uu u diyaar garoobo. waanu arkaynay qodobka 6aad 7aad 8aad ee xeroosaadka golahu waxa ay qorayaan iyo waxay qeexayaan. golahuna inuu xeroosaadkiisa ku dhaqmo oo markii ay yimaadaan uu ku kala baxo sida sharciga weeye. laakiin sida xildhibaan Farax Sulba sheegay marmarka qaarkood hadday wax soo kordhaan wixii hoos loo xalili karo loo xalilo dee way habboon tahay oo dhibi kuma jirto. oo dowladnimadeena oo dhan baaba ku dhisan in mararka qaarkood waxyaabaha qaar hoos loo xalilo. tiina annagu diyaar baan lahayn, laakiin mudan ayaa la annaga saaka waxaan idinla wadaagaynaa arrintii waa iska wareejinaynaa. waxaan ku wareejinaynaa guddiga arrimaha golaha, guddiga anshaxa iyo arrimaha golaha. qoraalkiina waa diyaarinaynaa waana ku wareejinaynaa. guddigaana laga rabaa inay golaha ku soo celiyaan wixii ninkaasi xeroosaadku siiyo. mudanayaal waana mahadsantihiin. Cumar Guuxa, warbaahinta City. mahadsanid Guux. kulan lagu qabtay magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa lagu hadlayay arrimaha doorashooyinka dalka. warbixin muurtaasi ku saabsan mar kale waxa aynu soo jeedinay wariyaheena Cumar Guux. guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo waxa ay ku qaabileen haween u sharaxan ka mid noqoshada xubnaha labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo dhawaan doorashadooda ay ka bilaabmayso dowlad goboleedkaasi Jubbaland.
habeenkan ayaa waxa ay ka mid yihiin habeen ka soo jeeda deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland iyadoona kulankan ay soo qaban qaabiyeen guddiga heer dowlad goboleed ee Jubbaland kaasi oo looga hadlayay xaqiijinta qoondada 30% ee habeenka ay ku leeyihiin labada gole ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland Cabdiqaadir Jeylaani ayaa sheegay in ay fulinayaan heshiisyadii ay Muqdisho ku gaareen golaha wadatashiga qaranka isla markaana ka guddi ahaan ay diyaar u yihiin caawinta habeenka doonaya ka mid noqoshada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. qoondada dumarka ee 30% ah waxaa ka heshiiyay madaxda dowladda federaalka ah iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah. heshiisyadii ay ku heshiiyeen annagu haddaan nahay guddigii doorashada ama guddigii hirgelinta doorashada heshiisyadii ay ku heshiiyeen madaxda ayaan fulinaynaa. waxaan annagu ku daraynana male, waxaan ka dhimaynana male. 17 September ilaa iyo 29 Juunkii ugu dambeeyay oo ah dumarka in laga dhimo xildhibaanada ah ee tartamaya in laga dhimo lacagta la bixinayo 50% in laga dhimo wixii oo dhan heshiisyada la galay sidoodii baan annaga u fulinaynaa insha Allah tabaaraka wa taala. dowlad goboleedka Jubbaland iyo madaxda ugu sareysaba waxay siiyeen dumarka ku dhaqan dowladda Jubbaland maqaam fiican oo dhanka siyaasadeed ah. waad ogsoontihiin wasiiradii hadda ugu dambeeyay madaxweynuhu magacaabay ilaa 4 wasiir baa ku jiray, wasiir iyo 3 wasiir ku xigeen ayaa ku jiray. sidoo kale xildhibaanadii dowladda Jubbaland waxaan filayaa ilaa 9 xildhibaan inay ku jiraan. Umar Guxurbaynta City. maamulka Jubbaland ayaa war ka soo saaray xoolo la sheegay in la siiyo mandooriye ama daroogo. warbixin umuurtaasi ku saabsan Abuukar Yare aynoo eego. wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa war ka soo saartay tacadiyo la sheegay in lagala kaco xoolaha gaar ahaan kuwa la rarto. wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Jubbaland Maxamed Nuur Cali Cabdulle ayaa sheegay in ay ka war heleen in xoolaha gaar ahaan kuwa la rarto la siiyo daroogo ama mandooriye. dhinaca kale wasiirka oo shir jaraad ku qabtay magaalada Kismaayo ayaa warbaahinta u sheegay inaan la arkin xayawaanada la rarayo tan ama culays ka tan badan cidii lagu arkana aysan ka yeeli doonin. waxaan soo saarnay guddi ka kooban 6 xubnood oo arintaas ka howlgali doona baari doonana arinta wixii ka jiro isla markaasna digniino ayaan soo saarnay oo ku saabsan yani arintaas qof kasto muwaadin oo Soomaaliyeed oo ku nool deegaanada Jubbaland waxaan la farayaa inuu ilaaliyo xuquuqda xayawaanaadka miyigaanka ah sida dameeraha la rarto oo kale lo'da ama dibida la rarto iyo awrta. sidoo kale waxaa la farayaa inay ilaaliyaan xayawaanaadka kale oo guri joogta ah sida eeyaha oo kale iyo bisadaha oo inta badan lagu xadgudbo. mana u dulqaadanayso wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa arintaas inay dhacdo. cidii lagu arkana waa dembi waxaana la tigsan doonaa sharciga waxayna heli doontaa awaaqib u dhigma dembiga uu galay oo xarig iyo ganaax isugu jira. sidaad la socotaan xayawaanka kaliya ma ahan in la siiyo mandooriye, waxaa jiri kara xayawaanaadka in afka loo geliyo bir oo birtii afka loo geliyo oo la qasbo in jirkiisa la dhaawaco qaybo ka mid ah oo la damqiyo si uu u socdo ama loogu shaqeeyo in mandooriye la siiyo oo si intii looga talagalay ka badan oo u shaqeeyo. arintaas waa dembi waana mamnuuc. cidii lagu arka arintaas oo ku dhaqaaqaysana wasaaradda waxay ka qaadi doontaa talaabo sharci oo ku haboon. 200 maadaama uu yahay 100 yani litir ka badan lama saari karo ama 200 litir fuusta aan dhahno hal fuusta ka badan lama saari karo. dibidii sidoo kale 300 ilaa iyo waxa u dhaxeeyaan 250 ayagana fuusta iyo bar oo kale in la saaro ama 300 litir. cid alaale cidii arintaas ku xadgudubta wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa waxay ka qaadi doontaa tallaabo muuqata mana u dulqaadan doono in xayawaanaadka lagu xadgudbo. Maxamuud Aacad, warbaahinta City.
farsamo ayna cidna haba lagu hayn ayuu u hayaa bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Tani Jowhar walow mararka qaar uu kala kulmo dhibaatooyin kala duwan warbixin muurtaasi ku saabsan waxa aynu soo jeedinay wariyaheena Mahad Arkey waxa uu ku shaqeynayaa farsamo kumanaan qarni ka hor laga soo min guuriyay daa'uudkii nabiga ahaa nabadgelyo dushiisa ha ahaatee isku alxamida biro iyo jaqafyo aan islahayn ayuu ku guda jiraa hadda taas oo natiijada ka soo baxaysa ay noqonayso kareeto yacni gaari dameer dhammaystiran magaciisu waa maxamed shuuriye waana farsameeye muddo ku jiri hawshan ugu horeyn balahaynoo sharxo sida ay ugu saalan tahay samaynta kareetada yacni gaari dameerka wallahi waxaa laga sameeyaa tamuuni halkaas cadka dad aragtay gudaha ku jiraan tamuuni madow nin kasta soo rabo iyo istaafooyin saalo saas oo kala baxaa saas caadi oo kala baxaa gaariga waxaa laga sameeyaa adiga sida gaariga midka oo gaari dameerka waa suuqa lagu shaqaysto baadiyahana looga shaqaysto aad loogu intifaaca dadka caawinaa mid oo maaragtay lacag jaban iyo mid si toos lacagtiisa qaali ay tahay taasoo sameynaa waxaa kaloo ka mid ah qasnadaha iyo albaabada sidoo kaleenta iyo balaastiradana waa dejinaa oo baabuurta ama dheena ahaato mase hoomey ahaato mase noocee rabta ahaato iyo lagu sugan tamaane ah oo cagafyada aan gadnaa naftigooda ay ku jiraan qolka ku jiraan baqaarka gaari wuxuu kala baxaa farfaraali 16 isagoo 14 isagoo 15 hoomey 16 14 15 iyadana waa jirtaa maaragtay saas uu kala baxaa shiimeys waa jira isagana shiimeys gaari shiimeys la yiraahdo farsiyaalaha dambe ah waa isna nooc kasta ah oo dadka oo macna xoogaa lacag badan haysan oo markaas loo gato alxanka waa mid ka mid ah alaabaha suuro geliya in laba bir la isku dhalaaliyo si ay u mataanoogaan yacni isugu dhagaan maxamedne alla ayaa u fududeeyey qaabka isku alxamida biraha mar kale ha inoogu waramo marka aniga hadda garaashkan joogaa halkan waxaan ku sameynaa maaragtay sida qasnadoo kaleete gaari dameerada oo mar kasta aan sameyno oo ugu buwan yihiin waxaa kaloo jiro ganjeelada iyo maaragtay wax kasta loo baahdo ankee baabuurta alxan haddii u baahdaan ama shay kasta oo loo baahan yahay oo alxan ah halkan aan ku qabanaa marka anaga alxamiista saasaan nahay oo waqti horena ah oona macnaha hadda dhowna ma aha inkasta oo aanu jirin dhiirigelin ku wajahan wax soo saarkooda xirfadleyda Soomaalida oo xitaa mararka qaar ay la kulmaan in lagu faquuqo ama cayno shaqooyinkooda haddana waxaad moodaa iyaga oo aan dhag jalaq u siin ay la imaanayaan xiliba xilliga xiga farsamooyin soo jiita qalbiyada dadka mahad muuse mahdi mahad arkey warbaahinta city magaalada Jowhar waa tahay daawadayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka xuraansi wararka Soomaalida oo idinkaga imaanaya stuudiyaha dhexe ee magaalada Jowhar uu ku leeyahay warbaahinta city markana qaybihii dambe ayaan isla soo gaarnay ma loo darsaday qaare mise waa laga reystay warbixin umuurtaasi ku saabsanna waxaa inoo diyaariyay wariyaha Nacam Shukur Shaasha oo ka soo warama magaalada Muqdisho qaare ma loo darsaday mise waa laga reystay waa furaha su'aalo dhowra oo aan weydiinay qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka hooyo hal sano ayaa laga joogaa ka gadaal markii baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya gaar ahaan golaha shacabka ay kalsoonidii ugala laabteen ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre wax aan ka badnayn 10 daqiiqo Rooble ayaa hal sano ay u dhamaatay
waxaana la sheegay intii uu joogay xafiiska inuu ku guulaystay xallinta khilaafaad badan oo u dhaxeeyey mucaaradka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaana rooblaha maanta jooga lagu naanaysaa inta badan walaal soo dhowow haddaba qaar ka mida shacabka muqdisho aragtida ay ka dhiibteen hal sano kadib in loo darsaday ra'iisul wasaarihii hore ee dalka xasan cali khayre iyo in laga raystay aynu aragno ra'iisul wasaarihii hore wuxuu ahaa ra'iisul wasaare Soomaaliyeed waa shaqeeyay institutional building uu sameeyay wax badan uu sameeyay laakiin waxaad moodaa ra'iisul wasaaraha hadda jooga inuu ka aragti fog yahay oo ka maaragtay ummadda Soomaaliyeed ay uga kalsooni badan tahay sababtoo ah ra'iisul wasaarihii hore meesha uu dadka Soomaaliyeed uu yacni markuu siyaasadda ku jiray ay ka fiirinayaan waxay ahayd dadku maadaama ay wax u qaybsadeen ummadda Soomaaliyeed si dastuurka ku qoran 4.5 wuxuu ahaa hawiye ka soo jeeday hawiye wuxuu arkay inuu cagta hoosteeda uu ra'iisul wasaarihii hore geliyay laakiin ra'iisul wasaaraha hadda jooga ummadda waa simay sida inoo muuqata oo yacni cid kasta xuquuqda ay xaqa u leedahay ama hawiye ha ahaato ama daarood ha ahaato ama jareer ha ahaato ama jileec ha ahaato cid kasta xuquuqda dastuuriga xaqa u leedahay inuu leeyahay lama taaban karo waa ilaalin sharci ah ra'iisul hore ruhantii waa loo dhasan dhihi karaa leeyahay maxaa yeelay ra'iisul wuxuu ahaa ra'iisul waa ninkii ugu xilka dheeraay intii ra'iisul soo martay waa ninkii uu caqabadka badnaay waa ninkii uu shaqada badnaay ruhantii ra'iisul hadda oo joogo ninkii maxamed xuseen rooble waa ra'iisul ruhantii dadka oo simay oo aragti fog leh oo sidii oo ku hirgelin lahaay doorashada oo la qaban lahaay oo inaha dardar uu sameyn lahaay marka waxaan dhihi karaa ra'iisul xasan cali khayre waxaan jeeynaa inuu mar labaad soo laabto leeyahay maxaa yeelay wuxuu ahaa ra'iisul aad loogu kalsooni badan yahay ra'iisul oo jiro ayaan halaas ayaan insha Allah ku soo koobiyaa insha bismillaahir rahmaanir rahiim marka kood horta tiifiyaan waa idin mahad celinaya iyo warbaahintan cusub ee casriga ah waadna ku mahadsantihiin inaad shacabka aragtidiisa la wadaagtaan ama aad weydiisaan haddii su'aashu tahay mudana ra'iisul wasaare hore xasan cali khayre ma laga raystay mise waa loo darsaday waxaan leeyahay anigu looma darsanin xasan cali khayre wuxuu ka mid ahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed xaq u leh inuu wax xukumo lana xukumo waxaan ka mid ahaa dadka aadka u taageeri jiray oo aan lahaa dhiig cusub iyo dhalinyaranimo iyo wax uu soo kordhiyay waxaase muuqatay in uu dhammaan hay-adihii dawladda isagu ra'iisul wasaaraha ka ahaa uu khiyaameynayay sidaa daraaddeed waxaan leeyahay looma darsan xasan cali khayre anigoo ah musharax gargaduud musharax madaxweynaha Soomaaliya 2021 ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane xasan cali khayre runtii anigu waxaan is leeyahay waa loo darsaday sababtoo ah ra'iisul wasaare Roble iyo ra'iisul wasaare Khayre marka la isgarab dhigo waxaa kululaa oo seeftiisa ay banaanka taalay ninka la yiraahdo Khayre sababtoo ah dhuusamareeb meel buu saaray waa unahay beledweyne waxaan is leeyahay haddii uu joogi lahaa waa kala tuuri lahaa wallaahi Khayre de waa nin Soomaaliyeed oo nin Soomaaliyeedna in loo darsano mooye lagama raysan karo waa shakhsi Soomaaliyeed Soomaaliyana wax weyn buu ka qabtay Soomaalida walaalkeed buu ahaa walaalka haddii shaqaduu ku hayay hadduu ka tagana waa loo darsanayaa haddii walaalkaa oo la mid uu beddelana dee waxa weeye laga raysan maayo waa laba ninoo isku mid ah kolleyba anigu markaan koonfurta Soomaaliya ama waqooyiga ama bariga meelaha markaan joogo bulshada rayidka waxay ku jiraan madaxweyne marka Khayre iyo cali maxamed geedi iyo sheekh shariif iyo haddii madaxweyne loo deerto ra'iisul wasaare waa u dooran lahaa waayo sheekh shariifna dhinaca carabidu aad ugu fiican yahay Khayrena waa nin afrishaar oo dhinaca afrisharnimada aad ugu fiican yahay cali maxamed geedina dhinaca geesinimada iyo dad isku wadku aad ugu fiican yahay marka Soomaalida ninna lagama maarmo nin kastoo Soomaaliya wax qabanaya ama nool laga raysan maayo waa loo darsanaya hadduu shaqadii ka tago looma darsan waxaan u sameeynaa ra'iisul wasaare xasan cali khayre ummadda isku moodi karin maadaama in badan uu dagaal sameeyey rag badan uu xirxiray rag badan uu dalka ka raacdeeyey dalka waxaa isku wadi kara sida Roble oo kale dad walaalo wax u dhaama waa la waayey Roble iyadoo geedaha lagu kala jiro maamul goboleed kasta oo meel fadhiyo waa isku yeeray doorashadu ka saxiixay hadda dalkii doorasho aaday waxaan leeyahay marka aniga ra'yeen looma darsan xasan cali khayre ee waa laga reestay
sababaha jira soomaalidii geeda ku kala jirtay rag badan dagaal lagu qaaday qofku ka aragti duwanaa kara xumaan maahan maadaama laga aragti duwanaa karane inaad aisha maxaa iga aragti duwanaaday iyo dawladda diiday iyo waa qaran dumis iyo waxaan jirin lagu magacaabo oo qofkii lala dagaalamo ma fiicno ra'yiga qofka ka soo fula waxaa la rabaa ra'yi toosan oo dalka dhisa inuu noqdo ra'iisul wasaare xasan cali khayre wuu dadaalay wuu shaqay laakiin ra'yiyan xilliga hadda la joogo ra'iisul wasaare ku habboon ma ahayn waxaan u malaynayaa xilli ugu yaraan 30 sano hadda ka bacdi ayuu ku habboonaay xilligan la joogo Soomaalida waxaa isku wadi kara ra'iisul wasaare Roble maadaama walaalo kaale maxaa tabani miiska soo saar wada hadalno aan wada heshiino waay laakiin cid alle cid iga aragti duwanaata waa la dagaalamayaa oo ii sheeg dagaalaan wajahaya oo dawladii diidan tahay ama dalku inuu horumar u diidan yahay ma ahan waad mahadsantahay shaasha iyo telefishinkaaga City Somali TV waan idin salaamay idinkii iyo shaqaalahaba haddii aan gudagalo su-aasha aad weydiisay ee ah khayra miyaa loo darsaday mise waa laga raystay wallaahi mana odhan karo waa laga raystay mana odhan karo waa loo darsaday sababtana nin wuxuu ahaa muddo qarankan Soomaaliyeed u soo shaqeeyay wax wanaagsanna intii uu joogtay waa qabtay haddii dee khilaaf yar yimid oo maaragtay madaxdii dalkana ay isfahmi waayeen Soomaalidana uu u fududeeyey in khilaafkaasi sii jiitamana oo arrintaana uu ku tanaazulayna waa ku mahadsan yahay marka waxaan isleenahay shaqo markii hore socotay buu isaguna yimid haddana shaqadii nin kale oo Rooble la yiraahdo baa wada marka intii qaranka uu soo shaqeeyay waa ku mahadsan yahay wax kale oo nidhaahno waa laga raystay iyo waa loo darsaday midna ma odhan karo madaxdii qaranka ee dalka soo maamushay buu la mid yahay inkasta oo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uusan ka gaarin guulo waaweyn rajadii laga lahaa haddana waxaad moodaa in boqolkiiba 70 uu soo dhaweeyay maadaama uu isu keenay madaxdii maamul goboleedyada mucaaradkii ka soo horjeeday dawladda Soomaaliya isla markaasina uu horay u qaaday tallaabooyin loogu dhawaanayo in dalkan ay doorasho ka dhacdo 25 Juulaay oo maanta ah waxaa lagu ballansanaa in xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya doorashadiisa ay ka bilaabato qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka hase ahaatee maayan suuro gelin taas oo ka dhigan in weli ay cakiran tahay heshiiskii doorasho ee la gaaray cabdishakuur shaashaa warbaahinta City muqdisho mahadsanid shaasha barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida oo idinka imaanaya warbaahinta City xarunteeda dhexe ee kuleeda degmada Jowhar waanigeeta barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Saare Cabdi Xuseen Saare Wadani waliba Zakariya Cusmaan Cabdi dhanka kaamirada waa mahad arkay soo saaraha iyo farsamada waa Cumar Guux tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah sida ay nabadgelyo